mursadana saas kuma baabi'in kartaan horaa habarcayna u baabi'iseen reer ugaasa u baabi'iseen kamaal xasan cawd iyo ismaaciil dheerow hawsha aad ku jirtaan ka jooga wiilka ayaga ismaaciil cabdinuur iyo kamaal iyo mustafa dhixlo waxay rabaan inay khasab iyo muruqtuujis ugaas ugu dhigaan mursadana ma ogolo ugaasna waxaan noqonaa ninka mursada ogol yahay nimanka qaswadaneedanaada ah oo beesha inay burburiyaan raba oo inay wiilkaas loo dhameyn duubaan raba oo inay mursada duuba kala diraan raba nimanyahow ka hadla arrinkaasu ilaa beeshan aan baabi'inay saldanadeeda maahan wax kale oo na deeqa ma leh beeshuna ma baabi'in karaan iyo saldanad haddaad wax duuban kartaan haddaad ugaasna ugu qasbi kartaan galabtaba duubta wixii ka soo baxa waa la arki doonaa bismillaahi raxmaani raxiim walaashii waa dhowahay aniga magacaygu waa jaamac xasan jawlo beeshan waxaan ahay beesha saldanada nin ka soo jeeda oo raba maanta inuu ugu hadlo arrinta saldanada iska walaacsan tabashooyinka ay qabtaan maxay tahay marka walaalay qabiilka ay ka tirsan tahay waa mursade saldanadan waa saldanad mursade soo jireen ah sida aad la socotaba Allah u naxariiso September waxaan naga dhigtay ugaas qayb badan Allah u naxariiso kadib niman inay qasaan rabo horan uu qasi jiray oo nin la yiraahdo Kamaal Xasan Cawl oo inuu saldanada baabiyo rabo nin la yiraahdo Ismaaciil Cabdinuur ayaa dib iyo fitnad bash ku kala dhaxwada oo raba hadda maalmaha soo socda in wiil uu ugaaska dhalay ay qasab ku duwaan mursado raali ka ahayd marka waxaan leeyahay mursado waxaan leeyahay war ugaas 4 nin iyo 5 nin dooratay ugaas noo noqomaayo ugaas mursado u dhan waa in la doontaa nimanka Kamaal Xasan Cawl iyo Ismaaciil Dheerna waxa la yiraahdo Kamaal oo rag idin ka dambeeyo oo inay saldandan baabiyaan iyo mursado baabiyaan rabaan ayaa tihiin raglaana gadaashiina fadhiya mursadana saas kuma baabi'in kartaan horaa habarcayna u baabi'iseen reer ugaasa u baabi'iseen Kamaal Xasan Cawl iyo Ismaaciil Dheerow hawsha aad ku jirtaan ka jooga haddii kaleetana wixii caaqib xumo ka yimaad idinkay dusha idinka fuulaysaa waxaan rabnaa inaad noo faahfaahisid labada shakhsi ee aad magacooda carabawday dhibaatada ay ku hayaan beesha walaalay labada shakhsi oo magacooda carabaway jufada aan ka dhashay oo reer ugaasi baaba ku hayaan mid mursaday baaba ku hayaan hadda waxay rabaan maalmaha soo socda inay guri dhexdiisa ku duwaan wiil ugaaska oo dhalay oo Cabdirasaaq Cabdullaahi ugaas la dhaho oo mursada u dhameen taasna ma ka yeelayno hadday duubaan waxaan nagu ballanaa in mid lamida annagana aan duuban ceebta ka timaadan in Kamaal Xasan Cawl iyo Ismaaciil Cabdinuur ay leeyihiin wiilka ayaga Ismaaciil Cabdinuur iyo Kamaal iyo Mustafa Dhixlo waxay rabaan inay khasab iyo muruqtuujis ugaas ugu dhigaan mursadana ma ogolo ugaasna waxaan noqonaa ninka mursada ogol yahay haye wiilka marka hadeertaan la rabo in laga dhigo ugaaskaasi muxuu yahay waa Cabdullaahi ugaas xaashiya dhalay ugaaska dhintay wiilkiisa waaye marka nimankaasaan ugu digayaa niman kale waxaan inta kala hadlayaa ah nabadoon Cismaan Caraale Jaayta oo adeerkay ah nabadoonkeygiina ah iyo awowgay Cismaan Faarax Cali waxaan leeyahay maanta maalintiina waaye nimanka qaswadaneedanaada ah oo beesha inay burburiyaan raba oo inay wiilkaas loo dhameyn duubaan raba oo inay mursado duuba kala diraan raba nimanyahow ka hadla arrinkaasu haddii mar buuqi isqa qabsi yimaadana arrinku faraha waa ka baxay taas muu la xiriirta adaayiga aniga ma la xiriir doono laakiin waxaan ogahay inay rag war maqlay ahaan niman aan la xiriiro oo ayaga la xiriirana waxaan ka soo xigtay inay leeyihiin ilaa beeshan aan baabi'inay saldanadeeda maahan wax kale oo na deeqa ma leh beeshuna ma baabi'in karaan iyo saldanad labadan shakhsi ee magacyadooda aad sheegtay marka laga soo tago ma jiraan dad kaleeto oo kulug leh oo arrintan la wado Mustafa Shacal Bixlow adeerkay Maxamed Xasan Xaad oo si xurmad leh inta aan u hadlaayo adeer Maxamed Xasan Xaadow aan gadaala ka taagan tahay nin odibaa tahay nin adeer baa tahay arrinkan ka noqo inaad mursada kala dirto inaad habarcayna kala dirto inaad reer ugaas kala dirto wax xigmad iyo wax aqli ay ku soo kordhinaysa male bahashan ehel baa u tahay adeer baa u tahay laakiin alla ka cabsi iyo cadli ku dhaq haye beesha marka laga soo tago dadkan eedeenta aad u jeedinaysaan beesha yaa rabtaa marka iyada inay doorato walaalay beesha qofkaasay rabtaa hadda kuma dhigi kara laakiin beesha qofkay rabto ama ilmo ugaas xaashi ha noqdaano ama wiilkaanu ha noqdaano beesha qofkay u dhan tahay baa ugaas noqon kara kaasaana raalli laga wada noqon karaa laakiin Mustafa Shacal Bixlow iyo Ismaaciil Cabdinuur iyo Kamaal Xasan Cawl arrinkooda horena waa ugu hadlay haddana waa ka hadlaa muruqtuujis
iyo khasab iyo xoog mursado ugaasna uma dhigi kartaan inaysan rabin cid khasab iyo xoog aad ku marsin kartaanna male haddaad wax duuban kartaan haddaad ugaasna ku qasbi kartaanna galabtaba duubta wixii kasoo baxa waa la arki doonaa ugaaska goormuu geeriyooday wuxuu geeriyooday September maalintay ahayd ma xasuusta laakiin bisha September uu geeriyooday Allah u naxariisto September sanadkii hore September 2024 ilaa inta marka beesha maxay u dooran weysay ugaas ilaa intaas Kamaal Xasan Cawl iyo Mustafa Shacali Bixlow iyo Ismaaciil Cabdinuur waxay wadeen qas iyo fawdo iyo inay mursada kala diraan inay saldanada reer ugaas soo faca weyn baabi'iyaan iyo xumaan iyo kala qaybin waxa aan ugu hadlay hadda ka horna waa qaska ay wadaan maanta waxa ay soo kicina waa fidnada iyo qaska ay dad tolka ku wadaan fidnada iyo qaska ay tolka ku wadaan ka daaya labadan shakhsi ma waxay ka mid yihiin odayaasha beesha mise waa dad kale Kamaal Xasan Cawl iyo Ismaaciil Cabdinuur waxay ka mid yihiin jufada saldanada ka soo jeeda ay ka mid yihiin Mustafa waa ka mid dadka ka soo horjeedaya yihiin marka mursado dhan ka soo horjeedo saddexdan baa ugaaska wiilkiisa inay khasab ku saaraan rawmaayna mursado dhan gogol in iskugu yimaado ugaas la iskugu dhiyo lagu duubto rabaa laakiin saddexdan qof albaab walba fidna iyo qas ay ka wada beesha mursade hore ma ugu wada fadhiisteen arintan oo ma ka wada hadleen walaalay beesha mursada ma hore uma fadhiisan waxay ugu fadhiisan waayeen mursada waa dad xishooda waa dad sharaf iyo xishmad leh saddexdan nin oo aan xishoodna Ilaahay ku saliday saddexdan sida looga gambanay hadday waxay soo banaan bixeen wiilkan qol hoostiisa ay ku duubaan mursadana ugaas qol lagu duubay cimrigiis ma yeelan ugaaska mursada waa la yaqaanaa waa ugaas taariikh leh waa ugaas ummadda Soomaaliyeed iyo Islaamka inay iskugu yimaadaan oo xafladiis ka qayb gashay ay tahay laakiin wiil yar oo qol ku duubanay rabaan annagana ma rabno tan iyo markii uu dhintay ugaaska beesha maxay qabanaysay waqti aad u foga ka soo wareegtay walaalay beesha waxay qabanaysay wanaag iyo xalay raadinaysay nimankan iyo niman kale oo ka dambeeyo oo gadaal ka fadhiyo oo saldandan inay burburiyaan u kala gashtay ayaa si walba loola hadlay waa diideen macnuhu marka saddexdan nin ayaa meel walba fawdo ku wada Mustafa Shacali Bixlow wuxuu soo adeegsadaa Ismaaciil Cabdinuur iyo Kamaal Xasan Cawl oo jufada saldanada iskale ku abtirsada maadaama adinka aad soo dooran weyseen ugaasa maxaa dhibaya hadii raggan hadda aad eed u jeedinaysay ay ugaas ay magacaabaan walaalay horta anaga ugaas ma soo dooran waynin dad xishooda oo waxaan ahaynaa ka xishooda inaan iska qabsano nimankan hoosaan ula hadalnay koraan ula hadalnay laakiin anaga ugaas ma soo dooran waynin inaan soo dooran diyaaraan u ahay waana arki doontaan ugaaskan dooran haddii alle maadaama hadda ugaaskan la dooranayo aad ka soo horjeedaan welina aadan dooranin ugaas kale muxuu yahay marka qorshihiina walaalay horta qorshe waa ki Ilaahay laakiin ugaaskan ina Cabdullaahi ugaas xaash hadday Mustafa iyo Kamaal iyo Ismaaciil Dheere ay qasab nagu marsiyaan waxaan halkan ka sheegaa in wixii ka dhaca reerkaas dhexdiisa iyo burburka ka dhaca ay ayaga mas'uul ka yihiin qasabna nagu marsiin karaano bal haddaad qasab nagu marsiin kartiin doorta ugaas galabtaba